waxa uu gacantiisa ku qoray 1,000,000 oo xadiid. Xadiid kastana haddii uusan qorin 50 jeer waxa uu dhihi jiray, maba aqaano. Haddaba waa kuma imaamkani laga yaabo inaadan weligaa maqlin. Laakiin waxa uu wax soo baray Imaamu Bukhaari, Imaamu Axmed binu Xambal, Imaamu Muslim. Ramadaan mubaarak asxaabtana halkan iskala soconno. Waxaan kaa codsanayaa in muuqaalka aad laagarayso si dad badan u gaaro. Imaamkani magaciisu waa Imaam Yaxya ibnu Maciin. Waxa uu ku dhashay magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq, wuxuuna ka mid ahaa culimmada aadka ugu xeeldheer cilmiga xadiidka. Cilmiga lagu kala garto xadiidka saxiixa iyo kan saxiixa aan ahayn, midka ka sugnaaday Nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo midka lagu been abuurtay. Imaamu Yaxya ibnu Maciin waxa uu gaaray heer la dhaho xadiidka Yaxya uusan aqoonin ma ahan xadiid. Haddii aad aragto nin neceb Yaxya, ogow ninkaasi waa beenaale alle ka furtay, oo ah kuwa Nebiga sallallahu calayhi wasallam xadiiskiisa ka been abuurta. Imaamu Yaxya waxa uu wax ka bartay culimo waaweyn oo ka mid yihiin Cabdullaahi ibnu Mubaarak, Cabdirisaaq al-Sancaani. Kadib Imaamu Yaxya waxa uu wax baray culimmada kuwooda muslimiinta ugu waaweyn ee qoray hal meelna isugu geeyey axaadiista saxiixa ee Nebiga ka sugnaaday, sida Imaamu Bukhaari, Imaamu Muslim, Imaamu Axmed binu Xambal. Imaamu Yaxya isagoo naftiisa ka hadlaya waxa uu yidhi, waxaan gacantayda ku qoray 1,000,000 oo xadiid. Xadiid kastana haddii aanan qorin 50 jeer, maba isku hayso inaan aqaano. Waxaa la dhahaa Imaamu Yaxya waxa uu aabbihii ka dhaxlay lacag aad u fara badan oo gaaraysa 1,000,000 oo dirham. Lacagtaasi oo idil waxa uu ku bixiyey cilmiga barashadiisa. Dadaalaa wuu gaaraa. Imaamu Yaxya ibnu Maciin wuu dadaalay ilaa uu ka noqday imaamyada muslimiinta kuwooda ugu waaweyn. Haddii intani aad soo gaartay fadlan ha ilaawin in muuqaalka aad laagarayso. Sidoo kale asxaabtada la wadaag. Waa mahadsantahay.